aynu halkaas uga soo gudubno kooxdii hiddo iyo sidoo kale heeskii shidanada joogtay bax oo hordhac u ahayd barnaamijkeena aroori suuban halkaad naga daawanaysaana waa telefishinka RTN xaruntiisa dhexe ee magaalada tan Nairobi aynu ku bilaabno qodobkeena ugu horeeya ee tibinteena tooska ee barnaamijka aroori suuban guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxa uu shaqadii ka joojiyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab sida ay ku sheegeen shir saxaafadeed ay ku qabteen magaalada caasimadda ee Muqdisho Yusuf Muxyidiin Axmed xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaana si guud uga warbixiyay go'aanka guddiga fulinta iyo talaabada shaqo ka joojinta lagu sameeyay gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan rabnaa inaan ku qarabano shir jiraayid oo sida arkaysaan xaadir yihiin inta badan xubnaha guddiga fulinta xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo ugu horeeyo senior vice presidentiga Ali Cabdi Maxamed iyo xubnaha guddiga fulinta iyo sidoo kale kaaliyaha xogayaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ulujeedka shirkeena oo ah waxaan maaragtay raacinaynaa kulan maanta iskugu imaanay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo ulujeedkiisu ahaa in shir degdeg loo qabtay xubnaha guddiga fulinta oo ay soo xaadireen xubnaha halkan fadhiyo iyo xubin kale oo guddi fulin oo iyadana ku soo gashay video call oo ahaa Faamo Kuula Cali shirka oo aan qabanay maanta wuxuu ahaa ulujeedkiisa ilaa 3 ajenda lahaa ajendooyinkaas oo ahaa motion laga keenay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo si lamid ah magacaabis in la sameeyo guddi baarayaal ah iyo sidoo kale in la sameeyo taariikhda xigta ee shirka la qaban doono shirka caadiga ah ee Congress-ka shirka oo iskugu yimaadeen xubnaha guddiga fulinta waxa lagu go'aamiyay waxa lagu soo jeediyay eedeemo soo jeedin xubnaha guddiga fulinta xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ay soo jeediyeen oo lagu eedeynayay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta kuwaas oo ahaayeen ilaa iyo 5 qodob oo qaab qoraal ah ujeedo qoraal minid ama qoraal shireed lagu soo saaray 5 qodob oo kala ahaayeen in oo ahaa qaab isticmaalka awoodaha ama wax loo yaqaan power abuse-ka oo ah mid saameynaya ama carqaladeynaya dastuurka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta labo in oo meel uga dhacay qodobo badan oo ka tirsan dastuurka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta asagoo isticmaalaya awoodda kontroolida arrimaha maamulka faragelinta arrimaha maamulka iyo si lamid ah internal wax loo yaqaano shaqooyinka maalmeedka ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta si lamid ah in uu ku guul dareystay go'aamadii ka soo baxay shirkii hore ee guddiga fulinta dhacay September 2021 September shirkii dhacay oo lagu soo saaray go'aaminta ciyaaraha horyaalada si lamid ah lagu soo saaray lana approve gareeyay wax loo yaqaan road map-ka dib u eegista arrimaha dastuurka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo asagu uu hor istaagay in dastuurka dib loo fiiriyo arrimihiisa si lamid ah waxaa sidoo kale lagu eedeeyay guddiga fulinta inuu aqbali waayay maxaa la dhahaa in la fuliyo dib u eegista dastuurka oo soo bilaabatay 20 September 26 October 2020 oo ay hay'adda FIFA iyo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta hor uga wada hadleen si loo fuliyo go'aankii ka soo baxay labada hay'adda FIFA iyo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagtaba ay noqotay ilaa iyo xaaligii maanta la soo gaaray 12 December ay fuli weysay arintaas si lamid ah waxa maaragtay lagu eedeynayaa faragelinta ama ka qayb ahaanshaha macquulaha in looga shakisan yahay intii uu bilaabmin teeramka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ka bilaabmay 2022 mashaariic hore loo fuliyay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta uu fuliyay kuwaas oo kala ahaayeen 2 xarumood oo laga fuliyay magaalada Muqdisho mid technical center-ka iyo mashruuc sidoo kale laga fuliyay Wamo Stadium ee Kismaayo laga fuliyay kuwaas oo ahaayeen 2 project oo lacagaha ay bixinayeen hay'adda FIFA
keentay in laga shakiyo mashaariicdan oo ilaa hadda aanan dhammaanin si hore dhacane ay u soo gudbiyeen report dhowaan waxaa noo imaada xafiiska xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta tiim ka socday hay'adda FIFA ee u qaabilsan waxa loo yaqaan central review-ga ama sanad xisaabeedka dib u eegista xisaabaha hay'adaha la kala marsaday Soomaaliya iyo FIFA oo ay kaga shakiyeen macquul ahaanshaha isla ahaanshaha labada mashruuc oo hal shirkadood ay fulisay taasoo keentay shaki ah inuu ku jiro waxa loo yaqaano conflict of interest sidaas darteeda guddiga fulinta xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayagoo fiirinaya eedeymaha la soo jeediyey waxay u qaadeen cod in la geliyo proposalka ah in la suspend gareeyo ama laga joojiyo shaqada oo u hayay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta iyadoo guddiga fulinta xubnihii joogay halkaas oo aragtaan inta fadhida halkan iyo xubin naga maqan oo ku soo gashay video conference-ba ee isku raaceen in laga joojiyo shaqada iyadoo isla markaana u magacaabay inuu shaqada xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta wado sida sharciga qabo dastuurkana uu yahay wagaakaasi wuxuu ahaa xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed mudane Yuusuf Muxidiin Axmed oo ka hadlayay dabcan khilaafaad iyo sidoo kale khalkhalgelin la sheegay in madaxweynaha ama gudoomiyaha ururka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Mr. Cabdiqani ama mudane Cabdiqani uu dabcan ku kacay haddii aan halkaas uga nimaadno sidoo kale waxaa isagana saxaafadda magaalada caasimadda ee Muqdisho kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino oo ah dabcan sidoo kalena kusimaha gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxa uu ka dhawaajiyay in gudoomiyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani uu khalkhalgelin ku hayo habsami u socodka dabcan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed haddaba isagoo kula hadlaya magaalada caasimadda ee Muqdishona hadaladiisii waxaa ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim xubnaha xiriirka Soomaaliyeed guddiga fulinta xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta xogeyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta kaaliyaha xogeyaha iyo saxaafaddaba habeen wanaagsan sida adin muuqata waxaa goobta xaadir ku ah inta badan xubnaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta guddigiisa fulinta oo ka kooban 5 qof iyo sida la sheegay hal qof oo ka mid ah oo dibadda safar ku maqan oo si muuqaal qabatay sida warqadda beer abuurka ku cadeeday waxaa lagu sheegay in kooramka guddiga fulinta uu dhan yahay taas marka waxay cadeynaysaa meediya hortiisa in guddiga fulinta manjarosay halka tahay taasuna ay waxba ka jirin waxaan rabaa oo kale inaan u cadeeyo saxaafadda waqti laga joogo ilaa 6 bilood guddiga fulinta xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo mas'uul ka ah hay'adda kubadda cagta hagaajinteeda iyo horumarinteeda waxay ku howlanaayeen in hore loo dhaqaajiyo hay'adda sida ogtiin horyaalkii socday wuxuu ku gabagaboobay si rabshad ah ka bacdi waxaan isku daynaa wax kasta in la hagaajiyo tartamadii la qabto horena loo socdo taas way dhici kari weysay guddiga fulinta oo u xil saaran in ay hay'adda horumarinteeda ka shaqeeyaan u xil saaran markii ay doodo badan galeen wadatashi badan galeen waxa u caddaatay in gudoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta inuu khalkhal u horseeday kubadda cagta Soomaaliya taasna maanta 12 bisha waxay go'aansadeen in shaqada laga joojiyo oo sidaas lagu badbaadiyo xiriirka kubadda cagta waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno in horyaalkii koobka Janaan Daa'uud la bilaabayo si dhaqso ah waxaa kaloo ballan qaadaynaa xogayahana aan ku amraynaa inuu diyaariyo macallinkii xulka qaranka Soomaaliya waxaan samayn doonaa tijaabooyin si aan uga qayb galno ciyaaraha caalamiga ah ayadoo waajibna saaran tahay in kubadda cagta in la ciyaaro kubadda cagta magac ma aha waa in la ciyaaraa waa la ciyaari kari waayey waxaana u soo ahay gudoomiyaha hore xiriirka kubadda cagta sidaas ayaa guddigu meesha looga saaray waxaan cadeynaynaa marka in aan shaqada ay sideeda u socon doonto tartamadiina ay socon doonaan si dhaqso ah koongareskana waxaan u sheegaynaa inay u diyaar garoobaan xogayahana uu la wadaagi doono iyo kaaliyaha xogayaha wixii shaqaa oo ku saabsan in hore loo socdo gobolladana sidoo kale anigan u sheegaynaa in ay u diyaar garoobaan waxaan marka guddiga fulintana ka codsan ku boorinayaa ku bogaadinayaa
sida sharafta badneed ay u badbaadiyeen xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaana muuqata xiriirka kubadda cagta waa la wada yaqaanaa dadka ka tirsan waa 10 qofood halkan waxaa fadhiya 5 qof qof kamid ah wuxuu ku maqan safar sidaas waxaa ku maqan 4 waana Monjaraso 100% waxayna go'aansadeen silka saaka dhacay markay arkeen khalkhal iyo been abuur iyo in waxa ahaay hay'adaha nala shaqeeya been loo sheegay in xiriirka la badbaadiyo waxaan ka codsanaynaa dadka waxaan dhawaan samayn doonaa haddii la yiraahdo in aan qabano forum ku saabsan horumarinta kubadda cagta dadka daneeya kubadda cagta oo Soomaaliga oo khibrada shirar baan u qaban doonaa ilaahay hadduu yiraahdo dalka waxaan si fiican u gaarsiin doonaa kubadda cagta waxaan ka shaqayn doonaa kubad cag oo wax la qaybsata dalalka diriska iyo adduunka intiisa kalaba sidaad ogtihiin lama sakaafo ma ciyaarin oo soonkeena kaaf ma ciyaarin hal ciyaar oo carabta han ciyaarnay ayadana waqti gaaban la ciyaaray intaasna waxay ku imaanaysay in hogaaminta ay aad u liidatay waxaan waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha Allah dhamaanteen waan isu hambaleynaynaa kubadda cagta Soomaaliyana waxaan caawa marka laga bilaabo maanta oo ahayd 12 bisha 12aad 2022 waxaan leenahay waxay raacday wadada saxda ahayd waana mahadsantihiin